بسم الله والحمد لله القائل وقفوهم إنهم مسؤولون، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شلay waxaan warbaahinta ka arkayay dad aad u fara badan oo loo dhaariyay xilalka aqalka sare iyo golaha shacbiga iyadoo ay khamiis ahayd, ramadaan bartankii ay ahayd, kitaabkii alle jalla jalaaluhu gacmaha la saaray oo lagu dhaartay magaca alle in dalka iyo diinta iyo dadka daacad loo noqonayo. aad baan runtii u naxay, turid badan iyo shafaqana ay ii gashay. waxaan soo xusuustay qowlu rabbi jalla fi culah wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiidu lciqaab. ilahay wuxuu leeyahay ka baqa fitno iyo dembi aan hadhow ku ekaanayn qofkii sameeyey un ee caam noqonaysa ilahay ciqaabtiisuna waa daran tahay. run ahaantii marka koobaad ilahay waxaan ka baryayaa waa xilligii afurka. ilahayna waxaan markhaati gashanayaa dadkayga iyo dalkayga iyo diintayda in aan maaragtay jeclahay. ilahay waxaan kaloo markhaati gashanayaa qof muslim ah oo aan qalbiga wax ugu hayo inuusan jirin oo soomaaliyana warkiisa badaa. aad waxaan rajo weyn ilahay oga qabaa inuu baryadayda aqbalo. haddaysan intaasoo dhanba ay aniga ila tahayna ilaahay waxaan ka baryayaa, weynankiisa ayaan ku baryayaa, anigana taagdarradayda iyo addoonnimadaydan ku baryayaa. ilahu ducadayda aqbal. ilaahayow masaakiintaa shalay la dhaariyey ee kitaabkaada gacanta saaray, ilaahayow dhaaftaada ha ku ceebaynin, dembigood iyo kii waalidkoodna dhaaf. walaalayaal, waan ogahay xildhibaanow in qofka arrinta dibadda ka jooga iyo kan ku dhex jira ay kala duwan yihiin. waan la socdaa duruufaha iyo xaaladda waddanka aan maraynana ma moogi. ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqno, aan ogaanno inuu nabigeennu yidhi sala allahu calayhi wasalam kama fi saxiix albukhaari innakum sataxrisuuna cala alimaara wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama fa nicma almurdicatu wa bi'sat alfaatima. madaxtinimada iyo kursiga waad ku dadaali doontaan. sidaad kursi ku heli lahaydeen waad ku dadaali doontaan. sidaad madax u noqon lahaydeen waad ku dadaali doontaan. laakiin maalinta qiyaamo shallayto iyo qoomamo ayay noqonaysaa. madaxtinimadu marka hore way ku kolkoolin oo way ku nuujin. kursi fiican baa lagu dhigi, gaari qurux badan baa lagu siin, xafiis baa lagu agaarsimi, sekreteer baad yeelan, waa lagu adeegi, ama madaxweyne noqo ama wasiir noqo ama xildhibaan noqo ama agaasimo noqo. waa lagu kolkoolin maalmaha hore. markay kaa dhammaatana wa bi'sat alfaatima weeye. markuu kaa go'o naaskii iyo duubadii aad nuugaysay waa shallayto iyo qoomamo. waana miduu nabigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. shallaytadii waa marka laba ah. mid waaba adduunyada oo ninkaadii dhammaa ee ciidamadu ay waardiyeynayeen markii berri lagu yidhahdo oo reerkiinni aad qorra carruurtaada u xirxiiro waa foorxumaynteeda la eg. aakharana waaba shallayto iyo nadaamo siduu nabigu sheegay wamaa yantiqu cani ilhawa. wallaahi wabillaahi watallaahi ninka mas-uuliyad doontay waa iga deesisan yahay aniga. actarifu bidalik, waa qiraya arrintaas. taydii baaban u taagla ahay ee ninka mas-uuliyadda doontay ee u bambaxay ee aniga halla isiiye yidhi, ninkaa isaga aniga waa iga deesisan yahay. xaggana og ilaahay iyo rasuulkiisa waxay mas-uuliyadda ka yidhaahdeen. ninka og inuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacala innaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan innahu kaana daluuman jahuula. ammaanada samaawaadka iyo dhulalka iyo buuraha diiday, insaan baa dhabarka u ritay dulmi iyo jahli uu ku sugan yahay daraaddeed buuna sidaa u yeelay. iyadoo sidaa tahay waxaan ka naxsanahay qofka og kursiga noocaas oo kale inuu laaluus ku yimid. qofka sidaa og ee haddana kitaabka ilahay gacanta saaraya. kelmaddan waxaan u duubayaa macdiratan ilaa rabbina iyo walacallahum yattaquun. hor meesha hala banneeye melihi. dadkoo dhanna cumar ibnu cabdilcasiis ha noqdeen melihi. mas-uuliyadda in adiga lagu dhiibaa fiican oo lagugu soo jiido lagu yidhahda kaay adigaa ku habboone. laakiin in lagu qamaamo oo lagu tartamo annagoo aan ognahay weliba waxa ay tahay inayna cadaalad ahayn, inay doorasho dadban tahay, inaysan dadku ku midaysayn inaan loo dhammayn annagoo og. walacallahum yattaquunana rajaan ka qabaaho ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay cabsida ilahay idin gasho. wixii horena aad ka toobad keentaan ood ilaahay oga noqotaan, hadda kadibna aad mas-uuliyad dareentaan. xildhibaanow xilku ha ku dhibo. xildhibaanow shalay wixii tegey towbad iyo istiqfaar bay kaa rabaan. waxaa iman doonana ma ogid, ka madaxweynaha noqon doona iyo ka ra'iisul baarlamaanka noqon doona iyo mustaqbalka waxba kama ogid adiga. markan aad codka bixinayso, markan aad hadlayso, saacadaasaad adigu mas-uul ka tahay. ma madaafaata waalmu'ammilu gayb walaka saacatu alatii anta fiiha. ilaahay wuu ku weydiin haddii aad eexasho codkaada qof aan mudnayn aad u siiso, adigoo marka hore intaasoo dembi a soo galay. haddana sharku wayba kala yar tahaye haddaad jidayso qaanuun lagu dhaqmi doono markaad dhimato kadib, ilahay wuu ku weydiin jalla jalaaluhu. haddii aad sharci ka dhigato waxaan sharciga rabbi ahayn, ilaahay wuu ku weydiin, wuuna kala xisaabtami, wahuwa shadiidu lciqaab. waan aqaanaa rabbigay jalla jalaaluhu. bal ninka cirrada leh ee aqoon-yahanka ah iyo gabadha mutacallimadda ah ee kitaabka ilaahay gacanta saartay ee tiri dal iyo diin iyo inaan daacad u noqdaan doonayaa dadba, ee haddana ee xashada samaysa, ee haddana waxaa weeye qof aan mudnayn xilka haddana u magacowda, ee ku taageerta, ee isku xisbi baan nahay tidhaahda, ee isku qoraan nahay tidhaahda, ee isku meel baan ka soo jeednaa tidhaahda, ee ballan horaan soo galay tidhaahda. bal maanta inuu ilaahay ku badbaadiyo maanta ayaan eegi. maantay ummadda soomaaliyeed eegaysaa, maantay malaa'igtu eegaysaa, maanta ayay addoommada ilaahay sidaa u eegayaan. waa la dhimanay ogaada. cudurro saf ma aha jira. hebel wadnaha istaagay, xildhibaan isagoo u socdo wadnaha istaagay
in badan baad maqasheen waa dhintay oo kursigiisa cid kale loo soo dooray in badan baad maqasheen waa la qarxiyay iyadoo meesha maraysa isagoo meesha maraya in badan baad maqasheen waa geeridii baa bishii kaabiga ah ilaahay aan ka baqno kitaabka ilaahay aan gacanta saarnayna aan ka xishoonno taariikhdana ku sheegi doontay ogow maalin dhaweyta waxaan dhegaysanayay alwaalid sheekh cumar faaruq xaaji cabdi sultaan allah u naxariistay oo ka sheekaynaya berigeynu dowladnimada qaadanay baarlamaankii ugu horreeyey la doortay in loo soo bandhigay markii shareecada rabbi baan qaadanaa mase qawaaniin talyaaniga laga keenay oy gaala soo dhodhoobtay baan qawaaniin ka dhigannaa mucdamkii waxaa la isku raacay inaan qawaaniin gaaro ama qawaaniin ibni aadam waxaa dooni dheh qawaaniin laga dhigto tii baana maanta meeshaana dhigtay waayo maysida warka kaa haro maanta haddii aan waxaadan xaq u ahayn aad adiga soo qaadatay oo aad nusuus badan soo jiidhay shartu way kala yar tahay qawaaniin diinta islaamka dib ku intaad loo tidayso nin aan rabbi iyo rasuulba ka xishoonaynin aad noo doorato wax alla wuxuu sameeyey adigu ilaahay ku weydiin qoortaadayna suran tahay ilaa qiyaami saaca ilahayna wuu kaala xisaabtamay waana qoomamo iyo nadaamo arrintaasi ogaada allaahumma hal ballag allaahumma fashhad